cabdinaasir qodax iyo ku-xigeenka guud ee xisbiga mucaaradka UCID ahna murashax u taagan doorashada golaha wakiilada ee Somaliland ayaa maanta magaalada Hargeysa waxa uu qadar sharaf ugu sameeyay qaar ka mid ah haldoorka iyo siyaasiyiinta wadanka. Munaasabadan iyo ka dhacday Ambassador Hotel ee magaalada Hargeysa iyo waxa uu goreynba halkaasi ka hadlay faahfaahin ka bixiyay qadar sharaftani musharax cabdinaasir qodax. qadadan waxaan u sameeynay intii aanu saaxadda ku wajinay friendiska aan ku ahayn siyaasadda in aan runtii halkan aan maanta isku keenno oo runtii aan isku maamusno qadadan oo laba qodob daaran saddexdii bishii labaad baan ku dhawaaqay inaan ahay musharax golaha wakiilada u taagan rag badan oo halkan fadhiya iyo qaar badan oo dibadda jooga iyo rag badan iyo dumar badanna way igu soo hambeliyeen marka intii aan maanta Hargeysa ka gaari karayay ayuu baan iyaguna runtii aan ku maamuso maanta qadadan oo ugu mahad celinayay taageeradii iyo hiilkii ay garab istaageen iyo raggu ka raagay oo waxa laga yaabaa muddooyin badan in la kala raagay in kulamada caynka la isku yimaado oo lagu wada sheekaysto oo qaranka Somaliland haldoorkiisii wax badan soo qabateene in maantana runtii loo muxuu ahaayay qarankii loo fikiro oo tala iyo arrin wixii la hayo la isku guwaabiyo labada qodob runtii ahayd. geestooda waxa halkaasi ka hadlay siyaasiyiintii haldoorkii ka soo qayb gashay qadar sharaftani waxaana ay soo dhaweeyeen murashaxnimada cabdinaasir qodax. maanta waxaan u celinayaa cabdinaasir inuu intaas oo dad oo kala axsaab oo kala siyaasado kala fikir isu keenay waxaanay ka turjumaysaa cabdinaasir inuu nin ballaaran yahay aanu ku koobnayn xisbi UCID la yiraahdo. anigu markaan dalka yimid 2010 raggii ugu horeeyay buu ahaa cabdinaasir ee aniga isoo ay moogtay approach gareeya anigu aqoon oo aan isbarano maanta aan saaxiib weynahay wuu yar yahay nin daadiisa iyo nin ka weynba oo 17 sanadood siyaasadda ku jiray oo aanay wali barmadoobi ku duulin kaadkiisa ee kaad nadiifa kala soo baxay 17 sanadood idinkuna waa wada taqaaneeno kuma idaan arag baan filayaa waxaan wanaag ahayn waa ninu bisil inuu hogaaminta markan kaalin mugla ka qaato. cabdinaasir waa ku bogaadinaynaa inuu han leeyahay maantana uu u cimaamadan yahay inuu ka mid noqdo aqalka golaha wakiilada jamhuuriyadda Somaliland ee sharci dejinta koowaad waa nin ku munaasib ah ammaan badan baa loo jeediyey وأنا أفكباتي هاي لكن رون عبد الناصر مذكر نمو يوايل نمو يوضي نمو أنا دادي دي عرضي لهين لكن قرشدي يو أقونتي دولي يوان كوغا عبد الناصر أنا وحنا هاي هذي أرضاقي صاري وأنا نبوذ قلينا إياه إذن كان أساسه مال هذي إذن كلا إذن كعد سنة إياه nin odaya waxa rabanayo oo aad u socda oo dhexda ka xiran ayaa markuu albaabka bankiga hormarayo dhacay qad dadkiina waa wada naxariis waa ninka qabsi mid baa yidhi waa biyo ku rusheeya ninkii subsanaa intuu soo sara kacay hore dabiyo u baahnay oo kale dabiyaha hojina kusoo helahay lacag ugu rusheeya marka nin kasta uu sharxi cod idinku rusheeya leeyahay. cabdinaasir waxaan leenahay waan kuu ducaynaynaa u malayn maayo dadka halkan isugu yimid Soomaali baan aqaanayo inay cod ku siinayaan لكن دعوة من هو لنا هاي على قماعرهم كيبل TV هرقيسة.